hay'adda UNDP ayaa waxay deeq biyo ka qaybisay deegaanada Banyaal, Dhalaama, Cune, Dogoble iyo Geed Xamarka. Deeqdan biyaha ayaa waxaa hay'adda ka soo qaaday hay'adda la dagaalanka masiibooyinka Puntland ee loo soo gaabiyo Hadma, waxaana hay'adaasi ay ku sii wareejisay NGO-ga Mandeeq. Haddaba deeqdan biyaha ayaa waxaa maanta laga daafuray deegaanadaasi, waxaana ugu horeelkaasi ka hadlay Cabdilqaadir Cali Maxamuud iyo Cabdirasaaq Cali Galool oo ku kala hadlayay hay'adda Hadmo iyo NGO-ga Mandeeq. waxaan ka socdaa hay'adda Hadma oo ah hay'adda fududeysay biyahan in laga dhaamiyo degmada Wirwid. biyahan waxaa ku deeqay oo degmada Wirwid ugu deeqay hay'adda UNDP oo ka bixisay biyahana waxa loogu talagalay 5 tuulo oo hoos yimaada degmada Wirwid. isku darka biyahaas waa 101 booyadood. waxaana ku soo wareejinay biyahaas haddaan nahay hay'adda Hadma, guddiga abaaraha iyo degmada iyo NGO-ga localka ah oo biyahan qaybin doona. aad waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan dadka reer Wirwid sida wanaagsan ay waxa weeye noola shaqeeyeen. waxaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha guddiga abaaraha dawladda Puntland oo madaxda ka yahay madaxweyne Cabdixakiin Maxamuud Xaaji Cumar Camey ayaan aad ugu mahadcelinayaa sababtoo ah hawsha tan halkan aan maanta ka bilownay mas'uuliyadda aan u qaadnay isaga ayaa noo fududeeyay waana ugu mahadcelinaynaa. waxaan gaar ahaan aad ugu sii mahadcelinaynaa hay'adda UNDP oo hay'ad 101 booyadood haddaan nahay ururka Mandeeq ay nagu soo wareejisay hay'adda Hadma oo ay fan ka bixisay hay'adda UNDP. waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay'adda UNDP maadaama ay ogtahay dadka waxa ka jira ay ka damqatay abaaraha iyo waxa ka jira dunida oo dhan guud ahaan Soomaaliya. aad ayaan UNDP ugu mahadcelinaynaa. waxaan si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa hay'adda Hadma oo iyadu ka shaqeysay suurtana gelisay in hawsha tan aan maanta ka hayno degmada gaar ahaan 5 tuulo haddana halkan aan ka mid tahay 5 tuulo ay Dhalaama, Cune ay Hadma ay la'aanteedna ma suurta galeen. aad ugu mahadcelinayaa. annagu haddaan nahay NGO-ga Mandeeq waxaa mas'uuliyadda aan qaadnay inaanu laga bilaabo 2 bisha afraad ilaa 17 bisha afraad inaanu 5 tuulo oo mid walba ay leedahay magaalada Dhalaama suugeyn 101 booyadood inaanu si ay u gaari lahaayeen aan mas'uuliyaddeeda qaadnay. waxaan ahay guddiga abaaraha ee degmada Dhalaama, Cune waxaa saakin soo gaaray caawimo biyood oo ka yimi UNDP oo ay soo gaarsiiyeen hay'adda Hadma oo fududeysay hay'adda Hadma iyo waxaan soo gaarsiiyay qaybinta Mandeeq. guddiga abaaraha ee degmada Wirwid Cabdiraxmaan Ciise waxaan halkan ka soo gudbinaynaa in hay'adda UNDP ay noo keentay biyo dhan 101 booyadood oo ay fulinayso hay'adda Hadma iyo NGO-ga Mandeeq oo iyagu NGO-ga qaatay biyahaas 101 booyada wayna soo gaareen haddaan nahay degmada Wirwid. aanu u mahadnaqayno dawladda iyo hay'adaha ay ka midka yihiin UNDP, Hadma iyo NGO-ga ka soo qaatay ee fulinaya hawsha oo ah Mandeeq. ilaahay waa mahad leh waan u mahadnaqaynaa hay'adda UNDP anigoo ah Salaabandi gudoomiyaha abaaraha degmada Banyaal. waxaan salaamayaa hay'adda UNDP biyaha 24 booyadood ay noo keentay oo ay hay'adda Hadma oo ay fududeysay Mandeeq. أنا عشت عيسى محمد waxaan aan ka xaqiijinaynaa inaan soo gaarsiinay degmada Wirwid 5 magaalo oo hoos timaada 101 booyadood oo biyaha oo ah biyihii ugu badnaa ee yimaada degmada Wirwid oo ka tirsan gobolka Cayn. waxaan ka xaqiijinaa maanta inay biyihii si wacan loo daafuray. waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ah gudoomiyaha guddiga abaaraha oo halkan hay'adaha ku amray inay dadka ay wax la gaaraan. Sakariya Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Somali News, Wirwid.